kulanka golaha shacabka ee xildhibaanada ayaa maanta u baaqday kooram la'aan iyadoona inta badan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay walaac ka muujiyeen soo xaadiritaanka kulanka. warkaasi waxa inoo faahfaahinaya wariyaheena Maxamed Cismaan Daahiye. Guddoonka golaha shacabka ayaa shaaciyay in kulanka uu baaqday isla markaana uu kooramkii buuxsami waayay. ku dhawaad 116 xildhibaan ayaa soo xaadirtay kulanka waxaana maqnaa wasiirada xildhibaanada ee ku jira xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre waana sababta baaqashada kulanka. waa kan gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ku dhawaaqay xirnaashaha kulankii furmi waayay. maanta waxaan u ballansanayn in kalfadhiga shanaad fadhigiisa koowaad uu furmo sida xeer hoosaadku uu qorayo. xildhibaanada waa inay soo xaadiraan 9ka gudoomiyaha uu soo fariista 10ka halkan waxaan soo fariistay 10kii. xeer hoosaadku wuxuu qorayaa saacad dheeriya in lagu daro hal saacad dheeriya aan ku daray. saacadda hadda waxay tilmaamaysaa 12 iyo 4 daqiiqo ay tilmaameen. tirada hadda joogto waa 116 kooram ma dhama. waxaan idin sheegaynaa markaa maalintii ugu horeysay oo la rabo fadhiga inuu furmo kalfadhigii shanaad fadhigiisii koowaad kooram haddaan weynay waxay la tahay arrin ceebteeda baarlamaanka ay ku soo noqonayso golaha shacabka ay ku soo noqonay. waxaan sheegaynaa fadhiga xiga waa Isniinta kooram dhameystiran ayaan rajaynaynaa. kulanka annagana maanta ma furmine waa tagna khayr aydan rajaynaa insha Allah. sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa eedeymo u jeediyay xukuumadda maadaama ay soo xaadir waayeen xildhibaanadii ka tirsanaa xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre. ballan ku qaadayna haddii fadhiga ku xigo golaha wasiirradu ay imaan waayaan fadhiga oo waliba ay nafarwanka imaan waayaan wallaahi baan ku dhaartay anaa horkacaayo mooshin aan ka keenaynaa giddigoodna waaridayna ra'iisul wasaarahana ogaa. assalaamu calaykum. ayay ahayd maanta inaan amniga ka hadalno mooshin ama soo jeedin ayaa loo gudbiyay guddoonka oo ku saabsan in amniga laga hadlo oo xildhibaano ay saxiixeen. runtii waxaan garan la'aanahay sababta guddoonku oo u soo gabangabeeyay 5 saac iyada oo caadi ahaan ay dhici jirtay in ay si ka bedelan sidaas la sugo kooramka intii ay ka suurtagal ah. waxaan rabaa in xildhibaanadu soo socdeen inuu kooramka soo dhameystirmi lahaa qodobkii sharciga ahaa ee xeer hoosaadka ahaa guddoonku uu ku yuurarsaday maanta si aan loo furin jirin ayaa runtii loo fuliyay. dhinaca kale tan xaaladda dalkeenu marayo haddii kooram qabsoobay ay tahay xukuumadda inay uu ka qabsoomi waayay oo golihii wasaaradda dadkii ahaa ee ka tirsanaa baarlamaanku ma aynan imaanin golihii fadhiga ma aysan imaanin. markay dan u arkaan ay yimaadaan markay dan u arkin inay iska maqnaadaan haddana tiya dhacday. calaamad waadixa meeshan ay ka soo diraysaa golaha xukuumaddu inaanay ogoleen in la dhammaystiro muxuu ahaa dastuurkii. arrinkaasaa dhacday ma ogolo in laga hadlo mataqaana amniga iyo ammaanka in laga hadlo ma ogola. kaasaa maanta kalifay waxaan rabaa inaan ugu baaqo xukuumaddu inay ka joojiso duulaanka iyo interferka faraha badan leh ee ay ku samaynayso golaha shacabka. wax ku xiran ma ahayn in ayaga ay maqnaadaan wasiirro maahe waxay ku xirnad dhammaan baarlamaanka inay joogaan. baarlamaanka wuxuu ka kooban yahay 276 wasiirada baarlamaanka ku jirana waa 40 iyo xogo. marka xataa haddii ay 276da markii 40 laga jaro waa dareemi kartaa wali waxaa sii jooga 230 xildhibaan baa inay soo xaadiraan. marka ma aha mas'uuliyad wasiir iyo mas'uuliyad xildhibaane waxa ahayd shaqo baarlamaanka oo dhan u taalo inay soo xaadiraan. marka waxaan ugu baaqayaa xildhibaanada golaha shacabka kuwa gudaha jooga kuwa dibadda joogaba inay ilaaliyaan. saaka waxa u baaqdayna waxa ahayd ma ahayn barnaamij wasiir iyo xildhibaan ku saabsan xeer hoosaadkii golaha shacabka darteeda u baaqday. baarlamaanka federaalka ayaa u muuqda mid ku furmay buuq iyo jahwareer oo hor leh marka loo eego xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jirta iyo sida guddoonka oo u taageersan yahay xukuumadda taas oo kulamada baarlamaanka ka dhigi karta buuq iyo fawdo. Maxamed Cismaan, Somali Cable, Muqdisho.